munaasabadan hablaha iyo hooyooyinka dhalinyarada bahda saxaafada culimada diinka dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaada kadib waan ka mahad celinayaa xafladan soo dhaweynta ah. runtiina waxaan is leeyahay waxyaalo fara badan oo aada ku hadasheen oo ammaan ah. aniga naftayda waxaan is leeyahay ma mudni mana ihi. idinkuna wanaag iyo walaalnimaad cabirteen, xaqiiqadaydana anaa og, ilaahayna waa ogi. marka wixii qarsoon allah noo dhaafo. idinkuna waa mahadsantihin, jazaakum allahu khayran. ii saamaxa waxyar daqiiqado in aan wax yaro taariikha idinla wadaago. 10 sano ugu dambeysay 2009 ayaan magaalada muqdisho imid. waxaan u imid inaan ka qayb galo shir ay lahaayeen culimada soomaaliyeed. waa xilligii dowladdii shariif lagu soo dhisay Djibouti oo ay magaalada muqdisho tiri. shirkaas go-aamo iyo bayaan baa ka soo baxay, culimada soomaaliyeed soo saareen. xaalad adag baa lagu jiray, xaalad kala guuraa lagu jiray, xaalad ninkii joogay baa garanaya aada iyo aada halis u ah baa lagu jiray. shirkii culimadu markuu dhammaaday, aniga iyo 5 kaloo culimada ka mid ah ayaa waxaa naloo diray 2 urur ee wadaadada ahaa ee hubaysnaa oo markaa ay dowladdii shariif iska soo horjeedeen. ururkii xisbulislaam iyo madaxdiisii oo markaa uu hogaaminayay doctor cumar imaan, iyo ururka al-shabaab oo oday markaa u ahaa axmed godane. labadooda waan la fadhiisanay. labadooda waxaan ka dalbanoo ka codsanay, xaaladdu waa isbedeshay. dadkii shalay aada wax wada wadeen maanta inaad waddanka dhexdiisa ku dagaalantaan sax maaha. heshiis iyo wadahadal fura. ummaddana 10 sano 20 sanood dambe oo dagaal iyo dhib ah inay sii gasho sabab ha u noqonin. qoliyii xisbulislaam warcad maynana siinin. qoladii al-shabaab waa masalo taariikha, hadda ka hor meelo badan kama sheeg. waa la fadhiisanay. axmed godane ayaa oday u ahaa. fadhi dheer baan la qaadanay, duubkii ilaa cishahan la fadhi. wax walba waa naga diideen. markay naga diideenna waxaan u tilmaanay, odayaal baa ila socday, sheekh cali warsame, macalin maxamuud allah u naxariisto waa dhintay, sheekh nuur cali jaamac oo maanta jooga magaalada muqdisho. muxuu ahaayey raggaasaan ahayn. markay naga diideen oo ay yidhaahdeen wadaadahan war xogeyn baa tihi, waaqicana waa ka dhacsantihi. 4,000 oo waxaa joogay ugandhiyaana magaalada muqdisho. 4,000 waxay dhaheen gelin baan eriyeynaa. annaguna waxaan ku nidhi ma eri kartaane 4,000 horta 20,000 iyo 30,000 bay ku imaan doonaan. بسم الله. فريستة هلا فريستة هلا فريستة الله عافية. لا عافية. هلا فريستة إلهي عافية. آمين الله. آمين عافية الله. وصوت قابلنا يا هيران هذا soo gaabinayaa. kulankaas markay wax walba naga diideen waxaan ku nidhi mushkiladu way sii siyaadi doontaa. idinkii xisbulislaamna waad islayn doontaan, ummadada qaybteeda kalena waad islayn doontaan. ciidamadan hadda aad leediin waan saaraynaan way soo siyaadi doonaan. marka dambena waxaad isu rogi doontaan idinkii ummadda inteeda kale inaad noqotaan.
culimadii saasay u jeediyeen waana ka soo tagay maalinkii labaad baan aniga keligii ku noqday maalinka labaad waxaan kala niqaashay masaa'il diini oo ku saabsan gaalaysiinta muslimiinta xaqdarra lagu gaalaysiinayo iyo dhiiggooda la bannaysanayo niqaash dheer baan kala galay axmed godane nin la yidhaahdo fuaad shongole nin la yidhaahdo maad karatay kulligood way fadhiyeen waxaan kala niqaashayaa dhiigga soomaalida iyo muslimku inuu xaaraan yahay gaalaysiintan ay dhiigga ku bannaysanayaanna inuu xaaraan yahay ayaguna dood dheer baa dhex martay keligay baana markaa maalinkii labaad baan ku noqday oo masale taariikhowa 10 sano ka hor waxaa dhacday markaa kadib inaan bilaabay muxaadaraad magaalada muqdisho aan afkaartaa kaga digayo masaajidka abu hurayra baa waxaan ku qabtay ciddii joogtay baa joogtay muxaadaro aan kaga hadlaayay dhiigga muslimka iyo gaalaysiinta muxaadaradii labaad waxaan ku qabtay suuqa xoolaha muxaadaradaan ku qabtay halis baan gallay waardiyaan watay muxuu ahay maxaakimta qaar ka mida ay waardiyeynayey inay nallaayaan bay qarka u istaageen silix baan ku bakanay muxaadaradii saddexaad waxaan ka dhigay magaalada xaafadda madiina meesha la yidhaahdo saldhigga galbeed meel bannaan ayaan ku qabtay halka muxaadaradii iyadoo socota saldhig baa noo dhowaa intayna dhaafeen ayagoo hubaysan oy saldhiggii xabada ku rideen baa madaafiic muxuu ahay nalagu soo riday dadkii way isjiireen wax carara carruurtii dumarkii halis baa la galay waxay ahayd 10 sano ka hor bay magaalada muqdishoy ahayd markhaati baa laga wadaa waxaan raacay wafdigii qatar aaday xilliga isaga ah oo odayaal iyo culimo isugu jiray oo ay ka mid ahaayeen odaygii la dhihi jiray muxuu ahay nabadoon xasan muxuu ahaaye xaag inuu nool yahaan u malaynayaa waxaa ka mid ahaa axmed diiriye nabadoon axmed diiriye allah u naxariisto inuu dhintaan u malaynayaa qatar wafdigii aaday baan ka mid ah waan soo noqday magaalada nairobi waan ku noqday muxaadaraad musalsal ah oo aada u badan oo dhiigga iyo gaalaysiinta ku saabsan baan ka galay kadib munaasabad kasta oo ummadda lagu qarxiyo ama dhib loogu geysto munaasabad kasta waxaa kaga hadli jira khudbado iyo muxaadaraad baan kaga hadli jira wixii aan kari karnana ummadda waa la soo gurmanaynay tii u dambaysay zoofe oo middaa hadda aada xusuusataan ah waxaan ka galay khudab fara badan wixii ilaahay uuna waafajiyeyna ummadda dhulkeena oo usoo ururinay xataa waxaa dhacday in anigoo jooga magaalada nairobi intii u noolaa axmed godane waa qadiyad hadda ka hor cidna aan u sheegay cirkuu iisoo diray wuxuu igu yidhi waxaan fariin kaaga wadaa ninkuu iisoo diray waxaan fariin kaaga wadaa ninkii odayga ahaa waxaana ku rabaa inaad wada hadashaan oo heshiisaan waxaan ku yidhi maxaan ku heshiinaynaa wuxuu yidhi wuxuu rabaa inaad aduguna radiinta ka dayso ood ka aamusto ayaguna ku nabadgeliyaan waxaan ku yidhi taa macnaheedu waxa weeye lafahaaga ilaasho dal iyo diin iyo nimankan kadaati waxaan isku hayno naftayda maaha naftayda goortii ilaahay qadarey bay bixi laakiin dal iyo diin baan isku haynaayo hadday diyaaru yihiin inaan ka wada hadalno ka niqaashno meeshay rabaan baan ku tegaya laakiin hadday tahay lafahaaga ilaasho wax nin weyn loola yimaado ma haba intaasoo dhan markay dhacday magaalada nairobi waa la ogaa waxaa jirtay salaadaha habeenka hadduu soo galo cishe iyo maqrib iyo salaada subax waqti aanan masaajidda ku tukan jirin baana soo martay hanjabaad iyo handadaad iyo halis aan dareemayno intaasoo dhan markayna soo martay oo intaasoo halis aan soo galo 10kii sana ugu dambeysay waxaa wax la yaab lah ninka maanta leh fatwadii sheekh qumal ayaa carruurtii ku agowooday waa muqdisho joogta oo raba muxaadaro in loo jeedo taariikhda in laga been sheego sax maaha
intaa waa mawaaqif wada caam oo markhaati lahoo la wada joogay wey. haddii aan ummad soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo ama xalaalaynayo markay dhibaatadu gaadho uma soo gurmadeen. haddaan qabo in la daadiyana xoolo uma soo ururiyeen. dareen diineed weeye, mas-uuliyad weeye, culimadu ay qabto waajib diiniya wey. intaa waxaan idin taariikhdaasi waktiga idinkaga lumiyey علشان inaad ogaataan xaqiiqada inaad ogaataan. ummad badan oo been lagu lugooyo waxaan jirin loo sheegayna inay waxa jira ay ogaato. intaas weeye. aad baad u mahadsantihiin. kelimada aan doonayo intaa kadib inta taariikhda inaad idin idhaahdo dadka reer muqdisho waad mahadsantihiin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. jazaakum allahu khayran. caasimad inuu muqdisho ilaahay ka dhigay waa nicmo ilaahay idin siiyey. ummaddii soomaaliyeed inaad hooyo u noqotaan. caasimaddu waa hooyadii dalka wa. ummaddii oo dhan uruurinaysa. waa meel la wada leeyahay. waa meel ummaddu kusoo wada hiranayso. caasimad inuu ilaahay ka dhigay magaalada muqdisho waa qadar ilaahay. idinka dadka deegaanka u tahayna waa nicmo ilaahay idinla soo doonto. nicmadaasna shukrigeedu waxa weeye inaad uruurisaan ummaddii soomaaliyeed. inaad ummaddii soomaaliyeed hooyo u noqotaan. in ruux kastoo soomaaliya meeluu ka soo jeeda markuu muqdisho joogo uu dareemo inuu dalkiisii joogo, inuu caasimadiisii joogo, inaan laga xigin, ninna inaan loogu cagajuglaynin. nin walba ehelkiisii iyo dalkiisii iyo caasimadiisii inuu dareemo. taasi waxay keenaysaa in ummaddu usoo hilowdo caasimadii, inay ummaddu usoo noqoto caasimadii. dowladdii baa joogta, caasimadii dalka. in qaabka aanu u fikirno waana sidaad u fikiraysaan. la soo celiyo, ummaddii loo soo celiyo. arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiim ay tahay. waana idin farayaa. waadna farsoontihiin, waadna ku baraarugsantihiin. laakiin ha la xoojiyo wayaan ujeedadeedu. caasimaddu way ka duwan tahay dalka intiisa kale. ilaahayna tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo. qodobka labaad wuxuu yahay caasimaddu waxay saldhig u tahay dowladdii. dowladdana haddii ayan la garab istaagin sistamku dowladdu ma dhismo. dowladdu ashkaas kuraas ku fadhida maaha. dowladdu waa system iyo nidaam wa. mushkilada ina haysatana waxa way waxaynu ilaahay hadda kala saari la'nahay system iyo nidaam iyo ninka ku fadhiya. ninka ku fadhiya maanta mid baa ku fadhiya, berrina mid baa imaan doona, shalayna mid baa jooga. systemku laakiin waa daa'im waaye. systemku waa joogaa. systemka ummaddii baa intifaacsanaysa. shalay mid baa joogay waa ka tegey, maanta mid baa jooga waa ka tegi doonaa. laakiin waxa ay ka tegayaan dhaxalka ah ummaddaa iskale. marka dhaxalka inaan wada kobcinno, oon dhaxalka wada dhisno, oon dhaxalka wada garab istaagno, oo aan loo burburinin, oon loogu kicin, oon loo qasin calashaan hebel baa ku fadhiya oo ree hebel ah, ama hebel oo necbahay baa ku fadhiya. hebelkaasi macno weyn ma samaynayo, laakiin systemka muhim. marka systemka dhaxalka ah alla dhiso, ana la wada garab istaago. rabo inaan intaa kadib kusii dheeraado. kelimadeeda ugu dambaysa waxaan leeyahay culimada soomaaliyeed meel kastay joogto, sida la sheegay culimadu waa inay noqoto meeshii ummaddu ku dayan lahay. midnimada lagaga dayan lahay, walaalnimada lagaga dayan lahay, wada jir lagaga dayan lahay, akhlaaqda wanaagsan lagaga dayan lahay, ummadda in loo turo oo loo naxariisto lagaga dayan lahay, nasaaxadii waajibkee saarnayd inay gutaan. halkan markaan imid madaxdana waa la kulmay. hadda dowladda hoggaamisa labadii madaxweyne horena waan la kulmay. madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan gooni baanu la kulmay. waxaanu la kulmay sheekh cali baa ila joogay, sheekh bashiir baa ila joogay. waxaanu la kulmayna waxay ahayd inay dhahdo dalka u tura. dalka u tura. dalku mucaarado iyo hadal iyo ma xamili karo. marka nasiixaana saaran, inaan hagaajinaana saaran, inaan ummadda u noqono qudwo lagu daydo ayaana saaran. laba arrin culimadu inay kala saarto waay. siday culimadii ugu horreysayba sheegeen. midda koowaadi waxa weeyaan markaad adigu madrasadaada iyo masaajidkaaga iyo xertaada iyo inta ku raacsan wax u akrinayso, waxaad diin ahaan ugu qanacsan tahay u akri. laakiin markay timaado maslaxada guud iyo danta guud ee ummadda ka dhaxaysa, ninna kama lihid. ummaddaa nagala dhaxaysa, annagana qayb baan ka nahay. ummadda qarannimadeeda
wada jirkeeda nabadgelyadeeda is-ilaalinteeda sulxigeeda marka ummadda soo gaadho oo masaalixda guud ay timaado waa inaad ka timaado madrasadaadii khaaska ahayd qanacsanaantaadii khaaska ahayd taa gooni ha ku ahaato tanna ummadda la wadaag taana markay gooni ku ahaato waxaad sheegayso diin ugu qanacsan diinaan ugu qanacsan tahay sheeg aad baad u mahadsantihin jaabir waxaan ku gabagabaynayaa aniga ka shaksi ahaan aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta waana runtii waxa weeye waa idinka aqbalay soo dhaweyntii iyo xifladan iyo kahorba raallina waan ka ahay haba yaraatee nin u dudsanna malihi muxaadaraa laguu diiday kuma dudka mana sheeganayo magaalada muqdisho ayaa lagugu takooray ma qabo mana qabo inaad raalligeli isiisaan sababtu waxa weeye wax dembi ood iga gasheen ood iga ma jiro markaan jawaabayana waxaa dhi muqdisho oo magaaladayda war haba yaraatee cuqdad aan la noqonayana ma jirto insha allahu tacaala hadday duruuftu ii saamaxdana waan soo noqon oo waan idinla joogaa insha allahu tacaala sheekha muxuu ahay walaalaha qaarkood hadalkooda wadaadada kala qabta uu ka muuqdo wadaadada kala qabta ma aha masaladu wadaadada kala qabta ma aha masaladu waxa weeye wadaad baa khaldamay ninka khaldamayna waa in la yidhahdo waad khaldantay saasay meesha ku hagaagtaa annagu intaan doonanay khalad maana abuurin mushkilo maana abuurin ujeedadeyduna ma aha inaan muxaadaro dhigo markaan meesha imaanay laakiin bulshada qaar ka mid ay culimada iga codsaday dhowr beli nala joog khudbada jumcadana noo jeedi muxuu ahay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada nairobi hawlo badan kule waan saa u baaqday hadday mushkila abuurantayna go-aan waxaan qaatay intii hataa iska dhaaf dhiig ku daatee ruux soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku geli lahaa sababtay ayada dhahla kanso ayadoo weliba dawladdu ku madax adag tahay anaa diiday oo ku idhi maya ma dhacayso xataa madaxweynaha iyo waxaan ku qanciyey qiso waxaan u keenay cuthmaan ibni cafaan khaliifatu rasuuli llahi sal alla alay wasalam ayaa waxaa loogu yimid duulaan niman kacdoona duulaan ugu yimid xafiiskiisii bay isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nabiga sal alla alay slam la joogay baa dabcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan cuthmaan wuxuu ku yidhi ruux muslima intii sababteeda dhiig ugu daadan lahaa u banneeyay faraha ka qaada ha dagaalamin way ka baxeen saxaabadii nimankii way usoo galeen cuthmaan isagoo qur-aan akrinayay ku dileen qisadaasaan xataa u sheegay dawladdan ku idhi maadaama khaliifkii muslimiinta dhiiggiisii in la dilo u ogolaaday calashaani muslimiintu ha badbaadeen muxaadaro laga maarmi karo inay muslimiinta ku soo gaadho sax maaha sidaasaan marka ku baajinay sidaas daraaddeed wadaadka iyo wixii la fikrada iyagana waxba uma qabo soomaaliya oo dhanna waa saamax dad fara badan oo la lugooyey oo aflagaaday wax badan sameeyeyna ayaguna waa cag idinkuna waad mahadsantihi haddii uun munaasabadii timaado oo laysu yimaadana masaa'il wixii ah culimada dhex yaala in laga wada hadlay ku fiicanta wixii laysla afgaran waayana nin walba utiisa si nabadgelyaa ku wato wixii laysla afgartana si walaalnimo loogu wada socdo isaguna waa cafi intii gaf gashayna waa cafi dhammaanteedna allah ina wada cafiyo aadna waa ku mahadsantihi jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا الشيخ محمد وعن سيني دوميها قدرة بنادر أحمد توقع عاصمة وذن عمر محمد عمر فيليش سوء قصر دويو كلمة دي سكتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رسول الله وزيرك arrimaha diinta wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka mas-uuliyiinta kala gedisan xafladan soo dhaweynta nagala soo qayb gashay maantay
Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo culimada kale dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacdi salaam sharaf ayay noo tahay maantay inaan halkan kusoo dhaweyno sheekha iyo culimo badan oo garbihiisa ah. Allah ajarka siiyo wanaagiisa iyo muxaadarooyinkiisa iyo samafalka uu noogu yimidba. runtii aniga Maxamed Cabdi Umal dadka aad u yaqaana ka mid ahay. muddo hadda 12 sano laga joogo ayaa waxaa ii magacaabay wasiirka arrimaha diinta. sheekha iyo culimo kale ayaa 2 maalmood kadib igu yimid Nairobi hotel Intercontinental. waan xasuustaa 3 su'aal uu weydiiyey, 3 ugu jawaabay. wuxuu yidhi wasiirka arrimaha diinta waad noqon kartaa, bal waxaad noqon kartaa madaxweynaha dalka. saasuu yidhi. marka Allah siiyo sheekha ilaa waqtigaas salaada waa la socday, waan aqaanaa. waana uga mahadcelinayaa wanaagiisaas iyo samafalka uu ummadda Soomaaliyeed mar walba la dul taagan yahay, iyo sida uu uga warbixiyey ogaanimadiisa iyo yani taariikhda uga sheekeeyey xarakaadkii islaamiga ahaa iyo siraacii waddanka Soomaaliya loo soo maray. ma raba inaan hadallo badan halkaan ka jeediyo. sheekha khayr allaha siiyo insha Allah tacaala. sidaa u soo dhaweynay ayaan biidni illaahi alkariim kusii cudi doonaa. sheekhu wuxuu degan yahay magaalada Nairobi, laakiin waa daaci dacwada u go-ay oo meelo kala duwan oo adduunka ka mid a u tagay dacwada. waxaan idin xasuusinayaa muddo hadda laga joogo isbuuc ayaan aaday koonfur Afrika aan u qayb galay shir. dad badan oo magaalooyinka South Africa jooga oo Soomaaliya waxay aad ugu adkeeyeen inay u tago. waxaan tegay magaalada aan shirka uga qayb galayay oo Durban la dhahayay. kadib waxaan tegay magaalada Johannesburg oo Soomaali badan oo meeshaas joogta ay yidhaahdeen ilaa kowina. Soomaalidu halka ay ugu badan tahay South Africa waxaa la Cape Town. kadib waxaan tegay Cape Town anoo ka jawaabaya dalabaadkooda dadka Soomaaliya. khudbo weyn ayaan halkaan ka jeediyey. su-aalo badan ayaa waxaa la iga weydiiyey. khudbada halkaas aan ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ahayd kelmadaan idhi oo dhab iga ah. aan idhi magaalada Muqdisho waa magaalada dadka afka Soomaaliga ku hadla. marka arrinta sheekhu hadda uu ka dhawaajinayo ayaan markaas u sheegay dadkii Soomaaliyeed oo halkaas yimid. dhab ahaan magaaladan Muqdisho waa magaalada keliya ee ka turjumta Soomaalinimada, kana turjumi doonta insha Allah. magaalada Muqdisho inaad adigu ka timaado Jigjiga, ama aad ka timaado Gaarisa, ama aad Jabuuti ka timaado, ama aad Hargeysa ka timaado, waa isku mid. qof Soomaaliya af Soomaaliya ku hadlaya hadduu yimaado wuxuu noola mid yahay midka Muqdisho ku dhashay. taasna waxaa caddaynaya qof kasta oo Soomaaliya ee doonaya baasaboorka inuu qaato, inuu baasaboorka Soomaaliga uu xaq u leeyahay. waxaa lagu xaqiijiyaa dhalashadii sugnaana loo dira. dhalashadii sugnaanta wuxuu isu raadsadaa gobolka Banaadir. gobolka Banaadir dhalashada sugnaanta laga siiyaa. lamana shardina loogama dhigo inuu Muqdisho ku dhashay, inuu af Soomaali ku hadlayo shardi looga dhigaa. taasa marka uu sugnaantii dhalashada la siiyo kadib waxaa la siiyaa baasaboor. dhammaan dadka halkayga fadhiya horteyda fadhiyan sidaasay ogeen. taas marka macnaheedu waxa waaye magaalada Muqdisho waa magaalada dadka af Soomaaliga loo. sidaa darteed magaaladan dadka ku nool waa dad u taagan qof kasta oo Soomaali ah geeskuu doono ha ka yimaadeen inuu yahay walaalkiis yimid magaaladiisa. sidaas ayaan rabaa inaan u caddeeyo. ma raba inaan hadal badan sii iraahdo. waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka arrimaha diinta. falyatafadal mashkuur. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. xubnaha golaha wasiirada saaxiibaday, xildhibaanada labada gole, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada iyo ku-xigeenadiisa, guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo guddoomiyaha gobolka ururka haweenka Soomaaliyeed, culimada Soomaaliyeed, Maxamed Cabdi Umar, odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta, dhalinyarada gaar ahaan guddoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir, guddoomiyeyaasha degmooyinka, hay-adaha amniga, bahda saxaafadda, dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa sharaf weyn u ah wasaaradda warqabta iyo arrimaha diinta halka aad nagala socotaan waa bartaan Facebook ku leenahay Cadnaan Kaabul. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. waxaa hadlaya wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta. waa xafladda lagu soo dhaweynayo Sheekh Umar. fadlan haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir oo follow dheh. waa bartaan aan Facebook ku leeyahay Cadnaan Kaabul. waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada iyo odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta ku dhaqan gobolka banaadir qada sharaftan xafladan qiimaha badan ay ku sameeyeen sheekheena weyn. sidaa la socotaan sheekha magaalada wuxuu u yimid inuu ka qayb qaato fatahaadihii dalka ka dhacay ee saameeyey walaalaheenna ku dhaqan gobollada dalka gaar ahaan hiiraan. sheekha halkaas ayuu u yimid, qayb weyn ayuu ka qaatay. kadib sheekha magaalada markuu ku soo noqday sidii hore aan u sheegnay, qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxay ka codsadeen in uu jeediyo muxaadara. marka hore annagaa nala soo wacay, waxaana loo sheegay sheekhu nala soo xiriireen in uu rabo sheekha, taageerayaasha waxay noo sheegeen inuu sheekha rabo inuu jeediyo muxaadaradaas. kadibna misaajka isbahaysiga inuu ka jeediyaan aan ugu ogolaanay taageerayaasha. kadibna stadiumka isla sheekha markay shaqaaqadii dhacday kadib isla sheekha ayaa wuxuu naga codsaday isagoo badbaadinaya dhiigga shacabka Soomaaliyeed, isagoo ka hortagaya foodo damboo dalka ka dhacdo, ayaa wuxuu naga codsaday sheekha inaan baajinno. waana ka aqbalnay. sheekha aada ugu mahadsan yahay. wasaaradda mar walba waxay soo dhaweynaysaa culimmada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. waxaan caddaynaynaa culimmada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan inaan u dhaxayno oo wasaaradda firqo gooni ah aysan taageersaneen. sheekha siduu isagaba hore noogu sheegay wuxuu dalkan u yimid oo qayb weyn ka qaatay badbaadinta dalka 2009 markaasuu shirka dib u heshiisiinta magaaladu ka socday. ugu dambeyn hadalka magu dheeraanayo, waxaa idinkaga mahad celinayaa xafladan qiimaha badan ee ay soo agaasimeen odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta iyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan guddoomiyeyaasha degmada Cabdicasiis iyo Shibis oo u dhaxeeya hoteelka. culimmada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed waxay u baahi weyn weliba u qabaan wacyigelin. marka waxaa idinka codsanaynaa inaad mar walba magaalada soo booqataan, nagu imaataan. dadka Muqdisho oo diyaar ku ah in la wacyigeliyo diyaarna idin ah waa inay idiin soo dhaweynayaan. waa mahadsantihiin. jazaakum allahu khayr. baaraka allahu fiikum.